kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillahi raxmaani raxiim. Galab wanaagsan daawadayaal, maanta waa maalin Jimcaha, bisha Maarsan ay tahay 15. Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan. idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamuud Xasan. Wararkii oo kooban. U codaynta guryaha danyarta, burburka duufaanada, daryeelka jinsiga, ogolaanshaha shaqada ee dadka magangeliya doonka ah. Taasi waxay qodobadii kooban haatan waa kuwan iyagoo faahfaahsan. U codaynta guryaha danyarta. Codbixiyayaasha laba magaalo oo Maine ku yaala ayaa iyagu waxay kasoo horjeedsadeen tallaabooyin lagu doonayo abuurista guryo loogu talagalay dadka danyarta iyo dadka shaqo-xoogsatada ah. magaalada Cumberland ku dhowaad 70% waxay codbixiyayaashu diideen dhismaha 107 guri oo laga dhisi lahaa dhul ay dowladda hoose leedahay, iyada oo Kingfield codbixiyayaashuna ay diideen iyaguna afti lagu doonayay in lagu bedelo xeerka deegaamaynta ee iyada lagu gogol xaari lahaa dhismaha 18 guri. laakiin codbixiyayaasha magaalada Kennebank ayaa iyagu waxay ansixiyeen xeer lagu bedelayo xeerka deegaamaynta ee magaaladaas si loo dhiso 70 guri oo loogu talagalay dadka waayeelka ah, iyada oo guryahaas laga dhisi doono dhul ay ku deeqeen bankiga Kennebank Saving Bank. burburka duufaanka. saraakiisha Maine ayaa waxa ay sheegeen in daadad ka dhashay 3 duufaan oo jiilaalkan iyagu isaga daba yimid deegaamo ka mid ah gobolku ay sababeen in ka badan $90 milyan oo khasaare oo ay u geysteen kaabayaasha dadweynaha ee gobolka oo dhan. Guddoomiyaha gobolka Janet Mills waxa ay iyadu doonaysaa inay amaato ama ay isticmaasho 50 milyan oo ka imanaysa sanduuqa loogu talagalay arrimaha degdega ee gobolka si ay haddaba ugu dayactirto waddooyinka, sifaynta biyaha iyo weliba dekedaha kuwa waxyeeloobay aan idhaahdee duufaanadaas. qiyaastii kala badh lacagta ayaa waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dhiso xeebaha lagu shaqaysto si haddaba waxaa la yidhi looga dhigo kuwii ugu adkaysta isbeddelka cimilada. kalluumaysatada, milkiilayaasha iyo weliba dadka u dooda cimilada ayaa iyagu waxay ku boorinayaan sharci dejiyayaashu inay sida ugu dhaqsaha badan u ansixiyaan lacagta, sababtoo ah waxa ay isku dayayaan inay dib u dhisaan kaabayaasha goobaha biyaha ku xeersan ee ka hor bilowga xilliga dabashada aargoosatadu inta aan la gaadhin. daryeelka jinsiga. sharci dejiyayaashu waxa ay ka fiirsanayaan xeer lagu ilaalinayo xuquuqda taranka ee haweenka iyo weliba daryeelka isbeddelka jinsiga ah. sidoo kale waxa ay uu xeerkani baa layidhi ka badbaadinayaa daryeel bixiyayaasha caafimaadku xeerarka ciqaabta ee gobollada kale ee iyagu xadida arrimahaas. laakiin waxaa xeerkani uu ka soo horjeeda 15 gobol oo kale oo iyagu aan idhaahdee halkaas iyagu xadida helitaanka waxyaabahaas aynu soo sheegnay oo ay ka mid yihiin isku daaweynta hormoonka, qalliinka iyo noocyada kale ee ku saabsan isbeddelka jinsiga. gobolladaas iyagu aad bay u xadidaan. saraakiisha haddaba gobollada qaar ayaa waxay wacad ku mareen in ay maxkamad soo saari doonaan bixiyayaasha arrimahaas oo dhan. ilma iska soo ridka tusaale ahaan oo kale waxa ay iyagu ku ballan qaadeen in gobolladaasi ay ururin doonaan xogta goobaha lagu bixiyo, iyaga oo markaas doonaya inay ogaadaanna dadka ka howlgala goobahaas, ilmaha la iskaga soo rida iyo kuwa la iskaga bedela jinsiga. ogolaanshaha shaqada ee magangeliya doonka. iyadoo sharci dejiyayaasha gobolka iyo kuwa federaalku ay ka doodayaan in la soo gaabiyo waqtiga ay dadka magangeliya sugayaan helitaanka sharciga ay ku shaqaystaan ayaa Maine Public waxay kala hadashay dhowr qoys oo soo galooti ah sida iyadoo ay uga kaaftoomi karaan dadkaasi kaalmada dadweynaha. sida laga soo xigtay haddaba qareennadu waxa ay
qaadan kartaa baa la yidhi ilaa iyo 5 sano in dadka magangelyadoonka awoodi karaan inay iibsadaan guryaha sicirka suuqa iyo inay iyaguna bilaabaan ganacsiyo. dhanka kalena qoysasku waxa ay ku tiirsan yihiin adeega caawimaadda guud ee la yidhaahdo caawimaadda guud ama general assistant ee degmooyinka si ay uga kaalmaystaan in ay iyagu daboolaan baahidooda maalmeed inta ay sugayaan sharciga ay ku shaqaysan karaan. balse haddii ay helaan sharciga, dad badan ayaa iyagu aad waxay ugu hanqaltaagayaan in shaqada ugu horeysa ee ay qaban karaanba ay hore ka qaataan. taasoo iyada waxay keeni karta bay yidhaahdeen dadka indhaindheeyay inay dhaliso waxa la yidhaahdo xasilooni la-aanta ama roller coasterka. dadka u dooda haddaba ayaa waxay sheegeen in xafiiska Maine ee New Americans ee hadda la soo jeediyey dhismihiisu uu ka caawin doono dadka inay isu geeyaan dadka shaqadoonka iyo shirkadaha ganacsiga ee shaqaalaha iyagu doonaya. waxaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. intaas iyo nabadgelyo, waad mahadsantiin. wassalaamu calaykum. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Wanajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aad dhaqaale ahaan la tabaalaysan tahay COVID-19 daraaddii, sanduuqa mulkiilayaasha ee Maine waxay ku siin karaan kaalmada aad u baahan tahay. kaalmo ka timid dowladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah. codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga. waxa aad isbarbar dhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship.